بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka shabeelle saaka idiinaysa waxa kamida kulan gaar ah oo magaalada Nairobi ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynayaasha dawladaha Kenya iyo Soomaaliya warar dheeraad oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax bambaano oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo martigelisay shir oo lagu martigeliyay shir looga hadlayo tamarta oo lagu qabtay dalka Jarmalka dad lagu soo qabqabtay shaqooyin salka ku haya dilal qorsheysan oo ka dhacay nawaaxiga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe dawladda federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay dhiirigelinayso kordhinta awoodda siyaasadeed ee haweenka ciidamada nabad sugidda Galmudug oo gacanta ku dhigay ciidamo horey u soo goostay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kuna wareejiyay madaxda cusub ee maamulkaasi madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland oo la kulmay xubno ka socda hoggaanka hay'adaha samafalka ee ka socda dawladaha Carabta shir looga hadlayo xuquuqda siyaasadeed ee haweenka oo maanta lagu wado in lagu soo gabagabeeyo Muqdisho aabba Soomaaliyeed oo ka cabanaya boob lagu hayo dhul uu milkiyadiisa leeyahay oo ku yaala deegaanka Jasiira wararka dibadda ee shabeelle saaka idiinaysa waxaa ka mid ah dawladda Suudaan oo sii daysay mid ka mid ah mucaaradka dalkaasi oo xirnaa iyo Pakistan oo xirtay ku dhawaad 40 ruux oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii gobolka Kashmir وصباحنimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha Maarso sanada 2019 warkaas oo dhan waxa uu diyaara wariyahayaga Xasan Wali Sheekh Abukar aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Maxamed Daahir Cilmi Degani kulan gaar ah ayaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxa uu ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynayaasha dalalka Kenya iyo Soomaaliya arrimahaasi waxa si gaar ah ula socday wariyahana Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofeysane oo warkan ka diyaariyay muddooyinkii dambe waxaa dalalka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay madmadow siyaasadeed maadaama ay dawladda Kenya si aan gambasho lahayn u sheegatay badda Soomaaliya kulan gaar ah ayay ku yeesheen magaalada Nairobi madaxweynayaasha Soomaaliya Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxayna ujeedadiisu tahay in hogaamiyaashaasi oo uu dhexdhexaadinayo ra'iisul wasaare Abiy ka wada hadlaan waxyaabihii dhaliyay khilaafka labada dal iyo sida xal loo gaari karo madaxweynaha Soomaaliya oo safarkiisa Kenya uga ambabaxay dalka Itoobiya ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa waxa uu kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo isagu hadda u muuqda nin u gogol xaaraya heshiis nabadeed oo ay Soomaaliya iyo Kenya isla gaaraan lama oga ilaa iyo hadda waxyaabaha isla meel dhigeen madaxda dalalkaasi kulamadan waxaa ka horeeyay shir ay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea ku yeesheen madaxda dalalka Itoobiya Kenya iyo Eritrea waxaana xusid mudan Soomaaliya in aysan shirkaasi ka qayb galin lama saadaalin karo sida ay wax noqon karaan iyo waxyaabaha ka soo bixi doona kulamadan balse waxa ay dadka Soomaaliyeed si weyn u sugayaan qodobada ka soo baxda kulankan lagu qabtay magaalada Nairobi mahadsanid Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofeysane warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax bambaano oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya lagula eegtay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir hal ruux ayaa lagu soo warramayaa in uu ku geeriyooday weerar bamgacmeed ah oo loo adeegsaday ama lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ku sugnaa waaxda Horseed ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir qofka dhintay ayaa lagu sheegay in ay ahayd haweeney ka mid ahayd dadka ka ganacsada suuqa weyn ee suuq bacaad waxaana dadka goobjoogayaasha ah ay ku warramayaan in xilliga weerarka bambaano uu dhacayay ay halkaa ku sugnayd mid ka mid ah dadkii ka agdhowaa markii uu falkaasi dhacayay ayaa Shabeelle uga warbixiyay wixii uu arkay bamgacmeed waxa uu ka dhacay xaafadda Horseed ama laanta Horseed ee suuq bacaad ka tirsan degmada Yaaqshiid bamkaas ayaa si weyn looga maqlay eriyada iyadoona halkaas khasaaro uu ka dhashay caawa hal haweeney ah ayaa goobta ku geeriyootay oo ganacsatada suuq bacaad ka mid ahayd marka ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo agagaarka goobta ku sugnaa ayaa rasaas furay intoo rasaastaas
cid ku noqotay aysan jirin haddana waxaad moodaa caawa xaaladda inay kacsan tahay. waa garta marka waa tahay dowladda soomaaliya ayaa lagu martigeliyey shir tamarta looga hadlayo oo lagu wado in lagu qabto waddanka jarmalka. anise cabdullaahi maxamed anise anfac ayaa warkan faahfaahinaysa. shirkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda jarmalka ayaa dabyaaqada bishan maaj lagu qaban doonaa magaalada hamburg ee dalkaasi, waxaana looga hadli doonaa horumarinta tamarta dalal ay ku jirto soomaaliya. shirkaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa sidii maalgelin caalami ah loogu samayn lahaa tamarta dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay oo ku yaala qaaradda afrika, iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda jarmalka iyo shirkadaha wax ku soo saara tamarta ee afrika. kulanka ka dhici doona jarmalka ayaa waxaa ka qayb geli doona wasiirada tamarta iyo biyaha dalalka South Africa, Angola, Morocco, Ghana, Sierra Leone, South Sudan, Nigeria, Equatorial Guinea, Gambia, Burkina Faso iyo Soomaaliya. kulanka ka dhici doona dalka jarmalka ayaa waxaa ka soo qayb geli doona hay-ado caalami ah oo doonaya in ay maalgashi ku sameeyaan tamarta iyo kheyraadka dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika oo ka qayb gelaya shirkaasi. dad ayaa loo soo qabqabtay shaqaaqo salka ku haysa dil ka dhacay dhowaantan duleedka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe. warkaas waxaa la socday waryaheena cabdiqani bashiir xuseen oo soo jeedinaya. weli waxaa kacsan xaaladda deegaanka xabaadle ee gobolka shabeellada dhexe, halkaas oo maalmo ka hor lagu gowracay wiil 7 jir ahaa. arrintan ayaa dhalisay in shacabka ku dhaqan deegaankaasi ay ka caroodaan dhacdadaasi, waxaana xabaadley oo hoos tagtay magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ka bilowday tan iyo markaasi banaanbaxyo iyo gadoodyo looga soo horjeedo shakhsiyaad la sheegay in ay ka mid yihiin koox diimeedka loo yaqaano takfiir ee ku sugan deegaanka xabaadley, oo la aaminsan yahay in wiilka la dilay uu aabihii ka mid yahay maadaama la xaqiijiyey in isagu uu dilka wiilkiisa yar ka dambeeyo. cabdinuur xaaji jimbaar oo ka tirsan dadka deegaanka xabaadley oo u waramay idaacadda shabeelle muqdisho ayaa sheegay in boqolaal shacab oo caraysan ay burburiyeen saacadihii lasoo dhaafay dugsi qur-aan, goobo lagu cibaadeysto iyo meelo kale oo muhiim ah. waxaa dhacday anagoo masaajidkii aan joogno oo jamaacadii markaas jamaacadda ku oogeysay oo cisha aan ku jirno in maaragta maato iyo haweeno iyo wixii maaragta magaalada nagu soo banaan baxeen ay leeyihiin wiilkiisa dila dooni mayno oo baangadyo gaxay nagu soo tuureen. saa darteeda waan orodnay cayaalkeenii anaga iyo duurkii baan kalgalnay oo waa dad naga badan waana ceeriyeen. haweenkaas alxamdulillah wax naga mandhicin, wax naga mahalaawin, maaragta haweenkii waanba noo bariyey. marka subaxdii haddana salaada markaan tukanay 1 saac bar ama 2 saac waxaa nagu soo baxay ciidan oo xoog badan iyo maaragta shacabkiisii oo haween iyo dumar iyo maangaabo ku jiraan. kadib masaajidkii iyo wiilashaynii ay naga qabteen, masaajidkana waa fiiqdeen, waa baabiyeen, kitaabadii qaarkood waa guween. marka waxyaalo aad la yaabo oon ka dhicin oo maaragta ninka muslimka ah ku qiiroodo ayaa la sameeyey. annagoo tacsiin oo taalo wiilkeena la dilay raaskiis aan hayno, haddana inay banaanbax nagu sameeyeen, ayna ceeriyeen, ayna dakreen. falkan naxdinta leh oo 2 maalin ka hor ka dhacay deegaanka xabaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay ciidamada ammaanka ee gobolkaasi u soo qaqabteen tiro dad ah. shir looga hadlayay xuquuqda siyaasadda ee haweenka oo ayaa lagu wadaa in markaasi lagu soo gabagabeeyo maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. shirkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay magaaladan caasimadda ah. mahad maxamed cabdiraxmaan mahad mutawakil oo shirka ka qayb galay ayaa warkan ka diyaariyey. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya deeqa yaasiin ayaa sheegtay in qodobo muhiim u ah masiirka siyaasadeed ee haweenka soomaaliyeed ay ka soo bixi doonaan shirweynaha haweenka oo 2 maalin lasoo dhaafay ka socda muqdisho, qorshuhu yahayna maanta in lasoo gabagabeeyo. wasiir deeqa ayaa muujisay in shirka lagu soo bandhigay talooyin muhiim u ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed, waxayna xustay in lagu lafaguray in shaqooyinka iyo ka qaybgalka siyaasadeed lagu soo daro haweenka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan gabdhaha waxbartay. waxaana ay xustay in go'aanada ka soo bixi doona shirkan oo lagu wado in maanta muqdisho lagu soo gabagabeeyo ay la wadaagi doonto madaxda sare ee qaranka si ay u fuliyaan, misna uusan u noqon warmurtiyadeed oo keliya laga soo saaray shirka, balse laga dhigo xilligan axdi qarameed si ay ugu faa'iidaystaan jiilka cusub ee waxbartay. ayagana ay maaragtay sidii ugu heli lahaayeen. gabar ayaa tiri I think inay tahay Basiiro, misna gabar kale aheeday tiri
gabdhaha waxay rabaan 30% hadda 24 haysatiin aqal labada aqal 6 idinka maqan annagana siiya marka waxaa dareemaysaa markii wada hadal dhaco in maaragta fikrado badan la isdhaafsado dibito waxaan kaloo shirka uga hadalnay doorashooyinka waxaan uga hadalnay asxaabta siyaasadda sidii kuraastan maanta taala aanan loo dhuminin oo hore loogu socdon gadaal loo noqonin waxaan kaloo ka hadalnay awoodsiinta dhaqaalaha ee haweenka waxaan ka hadalnay cimilada isbedelaysa ama climate change waxa loo yaqaano sida haweenka ay maaragtay ay u dhibaateynayso sidii maaragtay waa kaga duwanaa jinsigu wuu kaga duwan yahay sida cimilada haweenka dhibka ku dhacayo hadalkan ayay ka jeedisay iyadoo xalay muqdisho ugu qayb gashay munaasabad caasho sharaf ah oo loo sameeyey ergada ka qayb galayso shirweynaha haweenka Soomaaliyeed waxaana munaasabadaas u sameeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan maanta ayaa lagu wadaa in si rasmi ah shirkaas loogu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana lagu wadaa in xiritaanka shirkaas kalamadii ka jeediyaan madaxda ugu sareysa qaranka meydka haweeney Soomaali ah ayaa laga helay gobolka Santiago ee dalka Mareykanka sidoo uu warkan ku faahfaahinayo Jaamac Maxamed Saalax warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka haweeney Soomaaliyeed oo meydkeeda laga helay dhismo ku yaala magaalada San Diego gobolka California ee dalka Mareykanka booliska dalkaasi ayaa sheegay in meydka haweeneydani oo maalmo badan la la'aa laga helay qaybta hoose dhismo ka kooban 10 biyaano marxuumadda ayaa magaceeda lagu soo koobay Munakuri waxaana qoyskeedu ay waayeen maalintii Sabtida ee la soo dhaafay saraakiisha booliska San Diego ayaa xaqiijiyay in dhaawacyo ay ku yaalaan marxuumadda balse aan la ogeyn cidda ka dambeysay dilkeeda ugu dambeyn Saciid Abiyow oo ka mid ah Soomaalida ku nool California ayaa sheegay in haweeneydan aad looga yaqaanay gobolkaasi isla markaana ay ahayd ganacsato madaxweynaha Puntland ayaa la kulmay xubno ka mid ah hoggaanka hay'adaha samafalka ee dawladaha Carabta Ismaaciil Turki oo warkan la socday ayaa faahfaahinta haya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la kulmay wafdi ballaaran oo ka socday mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka wafdiga hay'adda ka socday iyo madaxweynaha Puntland ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo taageeri lahaa xarumaha caafimaadka ee maamulka iyagoona mas'uuliyiinta Puntland soo bandhigay baahiyaha gaarka ah ee ka maqan bulshada ku nool deegaanada ay maamulaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo ka warbixinaya kulanka ka dhacay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta uu la kulmay ay isla garteen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalab caafimaad sida gawaarida gurmadka degdega iyo in la furo xarun weyn oo kaliyaha lagu dhaqo waxaanu kulan ku yeelanay madaxtooyada Puntland kulankaas oo aanu la yeelanay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulanka waxaa ka qayb galay wafdi culus oo ka socota hay'adda khayriga ah King Salman Humanitarian Relief wafdigaasi waxay u socdeen sidii ay caawimo uga geysan lahaayeen xagga caafimaadka Puntland mashruuca ugu weyn ee ay hadda khaaska ugu socdeen wuxuu ahaa mashruuc lagu dhisayo meel kaliyaha lagu maydho meeshaas oo runtii aad wada ogsoon tihiin inaynu aad iyo aad ugu baahannahay waxaanu ku heshiinay inay sida ugu dhaqsaha badan u dhisi doonaan xarun kaliyaha lagu maydho waxaanu kale ku heshiinay in marka xarunta la dhameeyo magaalooyinka kale ee Puntland oo dhanna insha Allah laga dhisi doono kuwa lamida kuwaas waxa kale aanu ka dalbanay ama aanu soo jeedinay baahiyaha kale ee aanu qabno ay ka mid yihiin in loo badiyo ambalaasyada ay ka mid yihiin in loo dhiso meelo health center fara badan oo ku yaala meelaha hareeraha ah oo ay ka mid yihiin in loo keeno mashiinada oxygen-ka dhaliya oo cusbitaalada runtii aad ugu baahan yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa horay u shaaciyay inuu diiradda saari doono adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ka maqan warkii oo aad kala socoteen subaxnimadan oo ah subaxnimo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 6da bisha Maarso sanada 2019 dhageystayaal waa naga inta cidoo warkan u dhaafo waxay dib uga baaran kartaa bartaanu internetka ku leenahay ee ciwaankeedu yahay radioshabelle.com